waxaan kaloo idinka codsanayaa inaad la qaybsataan dhalinyarada Soomaaliyeed oo u baahan inay fahmaan electrical engineering ama engineeringka waxa uu yahay si ayagana ay uga faa'iidaystaan insha Allah. Su-aasha ugu horeyso marka waxay tahay injineernimada meeqa nooc ayay u kala baxdaa? How many engineering fields exist? Su-aasha kalena waxay tahay injineernimada korontada maadooyinkee aasaas u ah? What are the basic subjects for electrical engineering? Insha Allah waxaan rajaynayaa su-aaladahaas iyo su-aalada kala badan inaan kaga jawaabo. Tan ugu horeyso injineernimada meeqay u kala baxdaa? How many engineering fields? Cilmiga engineeringka waa uu badan yahay. Waxaan ka soo qaadanayaa inta ugu muhiimsan oo aan isleeyahay dadku way ka faa'iideysan karaan ama dhalinyarada way ka faa'iideysan karaan. Tan ugu horeyso waxay tahay electrical engineering. Waxaa ku xigo electronic engineering. waxaa kaloo ku xigo ayadana waxa loo yaqaano computer science engineering. waxaa kaloo ku xigo wax la yiraahdo software engineering. waxaa kaloo jiro ayadana wax la yiraahdo mechanical engineering, civil engineering, chemical engineering iyo biomedical engineering. waxaa kaloo ayagana jiro injineernimo kale oo ayadana wadamada qaarkood oo hore u maray caanaga ah. waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo aerospace engineering oo ah cilmiga diyaaradaha iyo rocketska ku saabsan. Petroleum engineering oo asagana ku saabsan benziinka dhulka ku jiro sidii cilmigiisa loo baari lahaa ama loo baran lahaa. waxaa kaloo jiro marine engineering oo ayadana ku takhasusa badda iyo mawjadaheeda sida ay u shaqeeyaan. waxaa kaloo jiro wax la yiraahdo automotive engineering oo ku saabsan baabuurta. waxaa kaloo jiro agriculture engineering oo ku saabsan cilmiga beeraha iyo information technology ayadana oo ah mid caan hadda ah oo dadku aad ay u isticmaalaan oo ku saabsan internetka iyo computeradana sida isugu xiran yihiin. iyo waxaa kaloo jirto ayadana wax la yiraahdo communication engineering oo ayadana aan kaga hadli doono qaybta dambe. Electrical engineering waa maado aad iyo aad u weyn ama fieldkaas waa field aad iyo aad u ballaaran. insha Allah qaybaha dambe waxaan kaga hadli doonaa electronic engineering, computer science iyo software engineer. ayadana waxaan rajaynayaa inaan mid kasta aan video usoo diyaariyo ayadoo ku xiran su-aalaha la isoo warsaday iyo ardada u baahan. marka insha Allah hoos kusoo qor commentskaaga iyo wixii ay fikradaada ay kula tahay. Electrical engineerska shaqooyinkee ayay ka shaqeeyaan ama ay qabtaan? sidaa la socotaan injineerada electricalka barta waxyaalo badan ayay ku takhasusaan ama ay ka shaqeeyaan. waxay ka shaqeeyaan satellite communicationka waxa la dhaho oo ku saabsan cilmiga dayax gacmeedka oo cirka markii loo diro awood noo siiyey inaan communication ama aan wada hadalno annagoo joogno qaarado kala duwan. waxaa ku shaqeeya internetka, waxaa ku shaqeeya waxa la yiraahdo global position ama GPS-ka waxaan dhahno. waxaa kaloo ku shaqeeyo militariga xataa waa isticmaalaan diyaaradaha ayaga isduuliyo oo loo yaqaano drone-ka waxa ayagana ay isticmaalaan satellite-ka. marka waa cilmi aad iyo aad maaragtay important u ah waqtiga hadda la joogo. waxay kaloo ay ku shaqeeyaan waxa la yiraahdo wireless ama RF communication. wirelesskan sidaa la socotaan waxaa ka mid ah telefoonada annaga aan isticmaalno oo sim cardka ku shaqeeyo. waxaa ka mid ah 3G, 4G, 5G kulli cilmigaas oo dhan waxa ay ku shaqeeyaan waxa la yiraahdo wireless communication. wirelesskaasna dad ayaa barta injineero ah oo ku takhasuso si ay u maamulaan ama u design gareeyaan aaladahaas. waxaa ka mid ah bluetoothka oo aan isticmaalno. waxaa ka mid ah wifi waxa loo yaqaano. waxaa ka mid ah RFID wax la yiraahdo. waxaa kaloo ka mid ah Zigbee iyo waxyaalo kale. wax kasta oo network ku shaqeeyo waxay isticmaalaan wax la yiraahdo wireless ayay isticmaalaan. marka cilmigaasna dad waxaa barta injineero ah oo ku takhasusay oo design gareeyo oo analyze gareeyo oo noqdo system engineersna noqdo. waxaa kaloo ku jiro electrical engineer dadka barto dadka electronic designka oo design gareeyo electronicska. waxay design gareeyaan circuit boardskay design gareeyaan. waxay kaloo ayagoo isticmaalaya schematic diagram ayay waxay isticmaalaan circuitkaas ayagana waxay barteen electronics. waxaa kaloo jiro dadka ku takhasus waxa la yiraahdo power ama high voltage systems. waana dadka ka shaqeeyo korontada guriga noo timaado oo soo raacdo transmission lineska. dadka injineeradaas waxaa loo yaqaanaa power engineers ama high voltage system engineers.
waxa ayna barteen cilmigaas electrica ayagoo ku takhasusay powerka sida transmissionkiisa u yahay transformerada sida u shaqeeyaan sida u balance garayn lahaayeen powerka waxyaalahaasoo dhan ayay ku shaqeeyaan iyo powerka distributionka mararka qaarkood waxaa dhacayso markii korontada aada loo isticmaalo waa in ay balance gareeyaan ay make sure sameeyaan maaragtay korontadaas in aysan overload aysan sameyn aysan go-in marka ayagana dad waxaa bartay injineero ah oo ku takhasusay cilmiga waxaa kaloo jiro injineero ayagana bartay waxa la yihahdo solar energy-ga ama wind powerka solar energy-ga sidaa la socotaan waa tamarta aan ka helno qoraxda wind powerna sidoo kale waa tamarta aan ka helno hawada cilmigaas ayay barteen ayagana waxayna design gareeyaan systemadaas oo kale waxaa kaloo dad bartay ayagana waxa la yihahdo global position oo ah GPS-ka oo ku dhisan asagana sidii aan u ogaan lahayn meesha hadba aan joogno adduunka aan ka saaranahay ayuu wuxuuna siinayaa waxa la yihahdo latitude-ka iyo longitude-ka iyo altitude-ka ayuuna siinayaa si aan u ogaano meeshaan joogno kaana waxa uu ku dhisan yahay sidii hore aan usoo sheegay satellite ayuu ku dhisan yahay satellite-yaas oo noo sheegayo meesha hadba aan joogno si telefonkeena markii aan isticmaalayno uu noo tuso meesha hadba aan u soconno iyo meesha hadba aan joogno marka dad ayaa bartay waxa la yihahdo global positionist engineer anigaga idinla hadlayo muddo badan ayaan kasoo shaqeeyay global position waxaa kaloo jiro waxa la yihahdo instrumentation taas oo ah cilmiga ku saabsan sida u control lahayd sensorska sensorskaas waxaa loo isticmaalaa dadka ka shaqeeyo meelaha petroleumka ama oil and gaska si ay u ogaadaan gaskaas ama oilkaas pressureka soo gelayo iyo meesha hadba uu marayo waxaa kaloo ka mid ah meelaha biyaha wasaqda ah lagu treat gareeyo oo magaalooyinka waaweyn ay qabaan waxaa ka mid ah shirkadaha soo saaro foodka ama cuntada soo saaro ayaa kulle waxay isticmaalaan sensors si ay u ogaadaan marxaladda markaa ay ku jiraan waxa ay ka shaqaynayaan waxaa kaloo jiro cilmi dadku bartay digital signal processing oo aniga aan ku qaatay master aan ku qaatay asagana waa cilmi aada iyo aada important u ah cilmigaas oo loo isticmaalo asagana anything oo ku shaqeeyo communication ku shaqeeyo wuxuu isticmaalaa waxa la yihahdo signal processing masalanba tusaalahan haddaan soo qaadano circuitkan waxa uuna tusayaa input signal cod ayaa soo gelaya microphoneka marka wuxuu isticmaalaya waxa la yihahdo analog to digital wixii analoga ahaa ayuu wuxuu u bedelayaa digital marka wuxuu isticmaalaya digital signal processing kaas oo u bedelaya digital oo markaa sameynaya filtering iyo waxyaalo badan marka ayuu haddana wuxuu u bedelayaa digital to analog ka marka systemada saas oo kale ah waxaa leeyahay cilmi la barto oo asagana ku dhisan xisaab aada u badan oo la yihahdo fast fourier marka asagana dad ayaa barto oo ku shaqeeya waa cilmi muhiim ah oo waxyaalo badan loo isticmaalo waxaa kamid ah teleefonadeena oo vocoriska waxa la yihahdo waxaa kamid ah teleefonada waxyaalo badan ayaa loo isticmaala waxaa kaloo jira waxa la yihahdo control engineering cilmigaas oo ku takhasusa dadka bartay ay bartaan sensorska iyo robotska iyo medicalka waxyaalaha sida ay loo control lahaa ama siday u shaqeeyaan tusaale ahaan haddaan kasoo qaadano diyaaradda aan kasoo qaadano diyaaradda waxaa ku jiro intaasoo kun oo waxaa ku jiro sensors ah sensorskaas oo cabirayo diyaaradda hadba meesha ay marayso baalasha meesha ay taagan yihiin injinka quwadiisa directionka waxyaalahaasoo dhan waxaa ku jiro GPS waxyaalahaasoo dhan waxay isticmaalaan wax la yihahdo sensors sensorskaas marka wuxuu u baahan yahay qof engineer ah oo design gareeyo oo maaragtay sida u shaqeeyaanna saxo waxaa kaloo kamid dadka bartay controlka waxay ka shaqeeyaan robotka oo loo isticmaalo warshadaha baabuurta soo saaro kuwa cuntada sameeyo waxyaalahaas oo dhan waxay isticmaalaan robots waxaa kaloo ayadana loo isticmaalaa medicalka markii qofka laga qaadayo MRI oo kale magnetic resonance laga qaadayo machine ayaa la geliyaa machiinkaas wuxuu leeyahay control system oo ogaana qofka hadba meesha uu joogo systemka marka uu ku jiro kana qaadayo image ama ka qaadayo masawir marka ayadana waxaasoo dhan waxaa ka shaqeeyo injineerada la yihahdo control system engineers maadooyinkee aan u baahnay inaan qaato dugsiga sare what courses I need in my high school waxaa u baahan tahay xisaabta waa important engineeringka marka algebra 1 algebra 2 geometry trigonometry waa important courses oo u baahan tahay high schoolka markaad dhiganayso inaad si fiican u fahamto ama aad si fiican ugu baasto waxaa kaloo u baahan tahay pre-calculus iyo calculus
oo iskoolaadka qaarkood laga dhigo laakiin important ma aha sababtoo ah sanadka ugu horeeya markaad jaamacadda aadayso ayaad ku qaadan doontaa laakiin haddii aad sii qaadato way ku fududaynaysaa koorsooyinkaas in aad ku wanaagsanaato waxaa kaloo u baahan tahay cilmiga physical science la yidhaahdo haddii lagu qaato high schoolka waxaa u baahan tahay chemistryga inaad high schoolka kusoo qaadato ama xataa adiga aad isbarto waxaa kaloo u baahan tahay physicska iyadana inaad ku fiican tahay tan kale haddii aad ku aadayso engineeringka englishkana ayadana important waa englishka inaad akrin karto ama aad qori karto sababtana waxay tahay buugaagta ugu fiican oo adduunka oo engineeringka waxaa lagu qoraa english marka fahamkeeda important waa inaad fahmi karto maxay ku kala duwan yihiin college iyo university jaamacadda iyo collegeka maxay ku kala duwan yihiin collegeka waa 2 sano ilaa 4 sano keliya ayaa iskoolka uu u furan yahay jaamacadda ilaa aqoonta sare oo waxaad ku qaadanaysaa bachelor of science master iyo phd collegeka ardayda cabirkeeda waa yar yihiin oo classeska waa small size waa yar yihiin jaamacadda ardayda dhigata waa arday tiro badan oo galaaskii waxaa laga yaabaa inay qaadato 100 qof ee hal mar hal galaas ka qaataan collegeskana ilaa 20-30 qof meelahaas ayaa ay dhigto marka waa ka yar yihiin tababar gaar ahaan ayaa lagugu baraya oo gacanta ah marka waxaa baranaysaa ama air conditioning ama waxyaalo qaarkood oo adiga just oo takhasus u ah ama electronics ayaa ku takhasusaysaa ama 2 sano ama 4 sano jaamacadda waxaad aadi kartaa fursad waxay helaysaa cilmi baaris aad ku hayso si research aad u samayso waxaad ku aadi kartaa master qaadan kartaa phd ayaa qaadan kartaa macallin noqon kartaa marka waa ay ka duwan tahay university marka su-aasha kale waxay tahay electrical engineeringka ama engineeringka korontada maadooyinkii aasaas oo ah tan ugu horeyso waxaa important ah mathka sida hore aan usoo sheegay pre algebra elective ahaan ayaa u qaadan kartaa oo dugsiga sare ayaa kusoo qaadan kartaa waxaa u baahan tahay inaad qaadato calculus 1 calculus 2 iyo calculus 3 waxaa kaloo ayadana aad ku qaadan doontaa jaamacadda waxa la yidhahdo introduction to differential equation oo ayadana important ah markii saddexdaa course aad qaadato jaamacadaha qaarkood oo engineeringka way kala duwan yihiin qaar waxay dhigaan calculus 1 iyo calculus 2 oo calculus 3 uma baahnid waxaa qaadan kartaa introduction to differential equation ama xataa waxaa qaadan kartaa discrete math waxa la yidhahdo marka intaasoo math ayaad la kulmi doontaa markaad aadayso jaamacadda engineeringka waxaa kaloo aad la kulmi doontaa physics inaad qaadato oo ah physics 1 iyo physics 2 labaduna waxay leeyihiin lab ayaa la aadaa oo 1 saac ama 2 saac oo aad wixii hadba aad kusoo qaadato fikrad ahaan aad kusoo qaadato physicska aad ku samayn doonta labka marka taana ku talagal markaa jaamacadda engineeringka aad aadi doonto physics 1 haddaan wax yar ka taataabto maxaad ku baranaysaa waxaad ku baranaysaa cabarka waxaad ku baranaysaa dhaqdhaqaaqa motionka oo 1 dimension ah waxaad baranaysaa vectorska waxa la yidhaahdo waxaad baranaysaa force iyo motion quwadda iyo tamarta waxyaala saas oo kale ah waxaad baran doontaa waxa la yidhahdo kinetic energy waxyaalo badan ayaa ku arki doonta oo physics 1 ku dhisan marka ku talagal physics 2 wax yar waa uu ka duwan yahay waxaad ku qaadanaysaa waxa la yidhahdo fluidska thermodynamicska waxa la yidhahdo electric charge iyo sida u shaqeeyaan circuitska ayaa ku qaadanaysaa ay ka mid yihiin resistorskii parallel resistor series resistor waxyaalahaas oo dhan waxaa kaloo ku arki doontaa magnetic forceka magnetic fieldka iyo Faraday laws waxyaalahaas oo dhan ayaad ku arki doontaa tan kale waxaa baran doontaa electromagnetic waveska sida u shaqeeyaan sida interference ay ugu sameeyaan waxyaalaha kale waxyaalahaas oo dhan iyo quantum physics ayaad ku qaadan doontaa physics 2 chemistryga waxaad ku qaadan doontaa chemistry 1 iyo chemistry 2 oo ayagana mid walba uu leeyahay lab oo markii aad galaaska soo dhamayso aad ku aadi doonto lab si aad wixii aadba soo baratay aad u isticmaasho marka taana ku talagal chemistry 1 and 2 haddaan just wax ka soo qaato sidoo kale ayagana waxaa baranaysaa measurementga matterka intay u kala baxdo waxaa baran doontaa chemical reaction sida u calculate garan lahayd waxa la yidhahdo mole concept waxaa baranaysaa sida balance ugu sameyn lahayd equationska atomic structure periodic tableska
ionic iyo covalent metallic bonding waxaasoo dhan ayaad ku baran doontaa chemistry 1 and 2 marka ku talagal haddii aad awood u leedahay inaad sii hadeerta inta aad maaragtay high schoolka dhiganayso waxaas aad fahamto way ku fududaynaysaa hadhow insha allah waxaa kaloo ku qaadan doontaa waxa la yidhaahdo introduction to engineering oo kugu soo dhaweynayso engineeringka waxa uu yahay oo course asagana la qaata ah waxaa lagu barayaa resistorska capacitorska iyo inductorska sida u shaqeeyaan waxaa also kala baranaysaa sida circuitka oo electricityga ama ku dhisan resistor iyo capacitor iyo inductors sida ayagana aad u design garan lahayd ana u isticmaali lahayd marka ayadana waa lagugu soo dhaweynayaa oo waa markaas first yearka aad dhiganayso ayaa baran doontaa in the electronicska qaybtiisa waxaa baran doontaa sanadka ugu horeeya waxaa baran doontaa electronicska deviceska ay ka mid yihiin transistorka thyristorka ay ka mid yihiin FET-gas waxaa ka mid ah BGT MOSFET waxyaalahaas oo dhan diodka waxaasoo dhan ayaa ku baran doontaa sida u shaqeeyaan iyo sida ay u samaysan yihiin marka taana ku talagal waxaa qaadan doontaa communication courses ayaa qaadan doonta ayadana oo aad baranayso waxa la yidhaahdo modulationka ay ka mid yihiin FM frequency modulation AM oo amplitude modulation iyo QPSK waxaasoo dhan ayaa baran doontaa modulationka wax kale maaha sida isku dari lahayd laba signal markaana aad u diri lahayd kaana waxay leeyihiin equations ayay leeyihiin oo ku dhisan almost algebra ku dhisan ama trigonometry ku dhisan ayaa ku baran doontaa marka ayadana ku talagal inaad qaadan doonto communication courses waxaa kaloo ayadana aad qaadan doontaa waxa la yidhaahdo digital logic design waxaad design garaynaysaa digitalka waxyaalaha la yidhahdo gateska ay ka mid yihiin 9 gates and gate or gate waxyaalahaasoo dhan half error full error all of that stuff ayaad ku qaadan doontaa insha allah engineeringka asagana marka ku talagal taasna waxaa kaloo baran doontaa truth tableka waxa la yidhaahdo iyo waxyaalaha la yidhaahdo boolean algebra oo ayadan ku dhisan digitalka sidaa u design garayn lahayd waxaa ku qaadan doonta sida hore aan soo sheegay digital signal processing oo cilmiga signalka sida loo process gareeyo marka taana waxay ku dhisan tahay ayadan sida hore usoo sheegay waxa la yidhaahdo fast Fourier transforms FFT ayaa loo yaqaanaa taana waxaa baranaysaa signalka sida u kala jarjari lahayd ama isugu dardari lahayd ayaa ku baran doontaa manhajka bachelor of science oo electrical engineering ah ama 4 sano waa waxa loo yaqaano curriculum jaamacadaha qaarkood waa ay kala duwan yihiin laakiin cilmiga la baro kulli waa isku wada mid marka ku talagal taas tusaalaha idin tusi doono waa mid general ah oo aad ku arki doonto jaamacadaha inta badan sanadka ugu hore waxaa qaadan doontaa calculus 1 2 and 3 sida hore usoo sheegay physics 1 and 2 chemistry 1 and 2 waxaa kaloo qaadan doontaa circuit design 1 and 2 waxaa qaadan doontaa wax la yidhaahdo digital logic design oo aan kasoo hadlay qaarkood waxaa qaadan doontaa computer programming qaarka ardada waxay dalbadaan qaarkood C qaar waxay qaataan assembly language waxaa kaloo u baahan tahay elective courseska qaar waxaana u baahan tahay also English 1 and 2 iyo technical writing waxa la dhaho sida aad u qori lahayd technicalka warqadaha ah waxaa kaloo qaadan doontaa electives ayaa jiro oo history iyo geography waxyaalo saas oo kale ah ayay jaamacadaha qaarkood ay leeyihiin marka ku talagal waa sanadka labaad iyo sanadka koowaad sanadka saddexaad waxaa qaadanaysaa koorsooyin sarsare oo ay ka mid yihiin electromagnetismka waxa la yidhaahdo birlabta ku dhisan electricityga ama signalka iyo systemka 1 and 2 ayaa qaadan doontaa waxaa qaadan doontaa sida loo design gareeyo hardwareka ay ka mid yihiin programmable logic waxa la yidhaahdo oo chipka aad design garaynayso oo gudahooda ay ku jiraan gateska iyo waxyaala saas oo kale ah waxaa qaadan doontaa analog and digital circuits analog iyo digital waa circuitska important ah oo loo isticmaalo waxyaalo badan waxaa ka mid ah random signal processing oo asagana statistics ah asagana waa qaadan doontaa waxaa qaadan doontaa electronic material waxa la yidhahdo semiconductorska sida ay u samaysan yihiin waxaa kaloo qaadan doonta waxa la yidhahdo power electronics oo ah waxyaalaha ay ka mid yihiin waxa controlo powerka oo transistorska iyo MOSFETska iyo ay ka mid yihiin waxaa kaloo aad lagaaga baahan yahay sanadka saddexaad in aad samayso design aad samayso markaa senior ayaa tahay waxaa u baahan tahay inaad circuit design garayso oo macalinkaaga uu ku maaragtay ku warsado inaad soo design garayso waxaana laga yaabaa adiga iyo dhalinyaro kale inaad isla design garaysaan circuits marka taasna lab ayuu leeyahay 1 and 2 meesha ugu dambeysa 4 sano ayaa waxay tahay meesha dadku ay ku kala baxaan su-aal la isoo warsadaa jirto oo dhehayso electrical engineeringka
meeqa nooca u kala baxaa sidaa hore usoo sheegay noocyo badan ayuu leeyahay sanadka ugu dambeeyo ayaad waxaad ku dalbanaysaa waxa adiga hadda aad rabto in aad ku takhasusho marka meesha uu sanadka ugu dambeeyo waa inaad doorataa koorsooyin khaas ah oo aad rabto oo aad u isticmaali doonto waxa adiga hadba aad rabto inaad ku takhasusto masalanba ardayga raba inuu noqdo communication iyo signal processing iyo control hadduu rabo inuu ku takhasuso ama shaqo uu ku raadsado waxaa looga baahan yahay koorsooyinkan oo ah real time DSP inuu qaato waa inuu qaataa communication courses oo ayadana daya hore aan usoo sheego ay kamid yihiin modulationka iyo waxyaala saas oo kale ah communication network waa inuu qaataa ay kamid yihiin all the maaragtay direct communicationka oo kale wuxuu u baahan yahay feedback systems waxa la dhaho ay control systemka u baahan yihiin iyo computer control system ayadana koorsooyinkaas ayuu u baahan yahay qofka rabo inuu noqdo engineerka communicationka iyo signal processingka marka koorsooyinkaas ayaa loo baahan yahay qofka inuu qaato hadduu rabo qofka inuu electronic uu barto ama uu ku takhasuso maadaama uu backgroundkiisa uu haysto koorsooyinkan oo dhan waxyaalaha keliya uu u baahan yahay waxay tahay inuu qaato 2 course ama 3 course oo ah digital system and circuits inuu qaato waxaa kaloo loo baahan yahay inuu qaato analog integrated circuit oo barayo circuitska analoga ah sida u dhisan yihiin dhexdooda gudahooda oo ay ku jiraan transistors iyo waxyaala saas oo kale ah marka qofka raba inuu noqdo electronics uu barto ama uu ku takhasuso waxay tahay waa inuu qaataa koorsooyinkaas qofka raba inuu noqdo power system oo ah dadka ka shaqeeyo korontada ama electricity ka shaqeeyo guryaha noogu timaado wuxuu u baahan yahay inuu qaato koorsooyinkan wadamada hore u maray waxay qabaan waxa la yiraahdo nuclear power generators ayay qabaan marka qofku wuxuu qaadan karaa course ku saabsan nuclearka sida uu shaqeeyo qofka kale oo aan nuclear waxa uu ka shaqeynayna wuxuu qaadan karaa electrical power plantska warshadaha soo saara korontada sida u shaqeeyaan sida loo maamuli lahaa sida u control lahayd sida u balance garan lahayd waxaasoo dhan waxaa kaloo u baahan tahay electric power deviceska inaad fahmi karto power systemka sida u shaqeeyo AC DC muxuu switching waxyaalahaasoo dhan u baahan tahay inaad fahamto waxaa kaloo u baahan tahay power system analysis inaad analyze gareyn karto power systemka markuu loadka uu badan yahay markuu loadka yahay reactiveka markuu yahay waxyaalahaasoo dhan iyo markuu linear iyo waxyaalahaasoo dhan u baahan tahay inaad fahmi karto waxaa kaloo u baahan yahay si inuu barto power electronicska iyo sida loo manage gareeyo iyo electrical machinery oo ah mashiinada soo saaro korontada noo soo saaro ama ku dhisan AC ama DC ku dhisan ay kamid yihiin katarbiilada waxyaalahaasoo dhan inaad fahmi karto sida u design gareyn lahayd marka koorsooyinkaas ayaa u baahan tahay haddaad rabto inaad noqoto electrical engineer oo ku takhasusay power systemska haddii aad rabto computer inaad ku takhasusto computer engineering dadka waxaa waaye computerka design gareeyo circuit boardskooda iyo waxyaalahaas oo kale ayadana waxaa u baahan tahay inaad qaadato real time DSP oo ah coursekii lagu qaadanayo communicationka waxaa kaloo u baahan tahay computer hardware design sida u design gareyn lahayd waxaa kaloo laga yaabaa inaad qaadato koorsooyin ah C++ iyo Java marka ninka computerka raba inuu ku takhasuso engineeringka wuxuu qaadan karaa oo PS electrical engineer ah oo raba inuu ku takhasuso computer engineering wuxuu qaadanayo koorsooyinkaas